السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan macnaha marka hore u mahadnaqo intaanan gelin hadalkayga caawa Sheikh Abdallah macnaha maxaa yeelay Sheikh Abdallah wuxuu ka mid yahay qof macnaha nolosheeda runtii maanta alxamdulillah bacda macnaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iskale wuxuu ka mid yahay qof macnaha wax ka bedelay runtii qofkaas oo kalena qof la hilmaami kara ma ahan runtii haddii aan wax yar aan ka sheego macnaha taariikhda iskuulka waxaan bilaabay 2004kii anigoo arday ah so waxaan macnaha la kulmay macalinka uu ila taliyay IT markaa ku shaqeynay laakiin ma ahayn dhinacan hadda aan macnaha aan ku shaqeeyo talada uu isii macallin Abdallah habeenka runtii tala aad macnaha u muhiim ay ahayd maxaa yeelay waxyaalo badan ee fikirkayga ka bedeshay inaan arkoona qof Soomaali ah oo macnaha IT-ga dhigayo oo ma sha Allah maaragtay ku guuleystay ama ku shaqeeyo wax weyn ila macnaha ila ahayd runtii maxaa yeelay meelahan ka soo shaqeeyay marka ka hor qof Soomaali weligay macnaha lama shaqeyn so markaan bilaabay koorsooyinkii iskuulka ka baxay kulli koorsooyinka waan wada qaatay markaan wada qaatayna waxaan macnaha runtii go'aan ku gaaray in macalinka aan weydiisto macnaha inaan ka naqdo dadka iskuulka dib wax ugu celiyo so in macnaha wixii aan meesha ka bartay aan dadka macnaha mustaqbalka imaanayo kale aan anigana aan u gudbiyo wixii aan aqoon ahaan aan meesha ka macnaha ka faa'iideystay so macalinka ma sha Allah khayr ilaah siiyo fursadaas macnaha wuu iga aqbalay wuuna isii macnaha taa waxay macnaha ku tusinaysaa runtii anigoo macnaha soo arkay xagga ardanimada macalinimada haday noqoto almost maaragtay intaas oo san wax ka dhigay iskuulka soo macnaha arkay arday kale macnaha kala duwan ama fara badan runtii wax la tilmaami kara ma aha macalinimada ilaa adiga markaas aad macnaha aad gasho aad bilowdo inaad sameeyso maxaa yeelay marka aad aragto qof ku dhahay macalinta waa mahadsan tahay waxaad ii faa'iideysay wax badan maaragtay maanta waxaad macnaha igula talisay sanad ka hor 2 sano ka hor runtii aad ay anfacday maxaa yeelay waxaad dareemaysaa is not only adiga kaliya taad inaad ka fikirayso oo dadka kale macnaha walaalaha ah inay ka faa'iideystaan so runtii iskuulka macnaha saidin sheegay meel aad u weyn ayuu iga yaalaa global net mana ahan iskuul aan weligay aan hilmaami karo